بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu saddexan waa maxamed xuseen ashraf, waxaan ahay agaasima guud ee isbitaalka jaamacadda simad ee Dr. Sumed Hospital. shirkadda deegaan dhowr waxaan wada shaqaynaynay ilaa markii la furay isbitaalka. shirkadda markii hore waxay la shaqaynaysay jaamacadda oo isbitaalka ka tirsan yahay. isbitaalka markii la furayayna waxaa waaye waxyaabo hay-adihii ama shirkadihii ugu horreeyay wada shaqaynta la bilaabay ka mid ah deegaan dhowr. markii dee laga hadlayo nadaafadda ka institution ahaan ama simad ha noqoto ama jaamacadda simad ha noqoto ama isbitaalka ha noqotee, nadaafaddu waxay noo tahay annaga muhiim. waayo diiniyanna waa nadaafatu nisfu min al-iimaan. dhinaca kaleetana dee waxaa waaye xadaaradda iyo reer magaalnimada iyo waxay ka bilaabataa nadaafadda. marka nadaafadda ama ha noqoto meelaha bannaanka ah, ama ha noqoto gudaha, ama ha noqoto qalabka, ama ha noqoto musqulaha, ama ha noqoto maqaayadaha, ama meel walba oo ka mid a isbitaalka ama jaamacadda, waxaan ku dadaalnaa mar walba inay noqdaan nadiif. waana sababta nadaafadda aan ugu wareejinay shirkad, bacdama organizationska iyo meelaha qaar nadaafadda ay qabtaan shaqaale iyo institutionkaas dadka joogo ay ku kormeeraan. marka dee kormeerkii shirkaddan deegaan dhowr waxay noo qabtaan nadaafaddii, qalabka nadaafadda in la keeno, shaqaalihii la kormeero, haddii u baahan yihiin macnaha la xisaabtan ayaga ay la xisaabtamaan, haddii u baahan yihiin in la bedelo ayaga bedelaan, haddii shaqaale dheeraada loo baahdo ayaga ay keenaan, haddii nadaafad dheeraada loo baahdo xilliyada qaar ayaga ay shaqadaas qabtaan. dhammaan adeegyadaas iyo howlahaas oo dhan inay noo qabtaan. intaas aan wada shaqaynaynana kolley dadka bukaanada hosbitaalka imaado yaa markhaati ka ah isbitaalka nadaafaddiisa iyo mar walba bilicdiisa inay wanaagsan tahay. dhibaatooyinka marka ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa tababar la-aan. shaqaalaha inaysan aqoonin shaqada oo aysan tababar iyo aqoon aysan u lahayn waxaa waaye dhibaato aad u weyn oo jirtay ahayd. waxyaabaha inay deegaan dhowr ay xalisa aaminsan inay ka mid tahay in shaqaalaha ay tababaran yihiin oo marka hore loosoo tababarbar horto qalabka isticmaalayaan, siday u isticmaalayaan iyo waxaa arkay macnaha oomo iyo kaloriin laisku qasay qof bir ku dhaqaayo. marka waxaa dareemi kartaa waad xalisanay. so marka haddii qofka laakiin loo sheego wax ku dhaqan la dhaho, waxaa waaye way macnaha maxaa la badbaadiya. marka miisas qaaliga oo lacag badan laga soo bixiyo waxaa dhici jirtay meelaha qaar waxaan ku arki jirnay ay baabi'iso qalabka ay isticmaalayaan shaqaalaha nadaafadda. marka hadda waxyaabahaas xoogo waa laga yar roon yahay oo tababarka iyo traininka keenayo.